dalka Mareykanka ayaa hubka nukliyeerka waxa uu ku dhuftay magaalooyinka Jaban ee Hiroshima iyo Nagasaki 6 bishii Agoosto iyo 9 bishii Agoosto kadib ogolaanshaha boqortooyada Ingiriiska sida uu dhigayay heshiiskii Cupac ee wadamadaasi ay saxiixeen. heshiiska Cupac waxa uu ahaa heshiis qarsoodi ah oo ka dhaxeeya boqortooyada Ingiriiska iyo Mareykanka oo qeexayay shuruudaha isku duwidda horumarinta sayniska iyo injineernimada ee la xiriira tamarta nukliyeerka gaar ahaan hubka nukliyeerka. heshiiskaasi waxaa saxiixay Wilson oo ahaa ra'iisul wasaarihii dalka Ingiriiska intii u dhaxaysay sanadihii 1940 ilaa 1945 iyo Franklin Roosevelt oo ahaa madaxweynihii 12aad ee dalka Mareykanka. waxaana heshiiskaasi la saxiixay 19 Agoosto sanadkii 1943 intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka. shirkii koowaad ee heshiiska Cupac waxa uu ka dhacay magaalada Quebec ee dalka Canada. labada qarax ayaa dilay inta u dhaxaysa 129,000 iyo 226,000 oo qof oo badankood ahaa dad rayid ah. welina waxa ay ahaayeen kuwa keliya ee loo adeegsaday hubka nukliyeerka dagaaladii hubaysnaa ee adduunkan ka dhacay. sanadkii ugu dambeeyay ee dagaalkii labaad ee adduunka, xulafada waxa ay isku diyaariyeen in ay duulaan ku qaadaan dhulweynaha Jaban. howlgalkaasi waxaa ka horeeyay olole abaabulan kaas oo baabi'iyay 67 magaalo oo dalka Jaban ka tirsan. dagaalka Yurub waxa uu soo ilaaday markii Jarmalka uu saxiixay heshiiskii lagu soo afjarayay dagaalkii labaad ee adduunka ee Yurub gudaheeda ka socday 8 bishii May sanadkii 1945 iyo xilligaasi oo isbahaysiga uu u soo jeestay dagaalkii jasiiradda Basifikada. markii la gaaray bishii Luulyo ee sanadkii 1945 mashruuca isbahaysiga ee Manhattan Project waxa uu soo saaray 2 nooc oo bamba ah oo atomic ah kuwaas oo la kala yiraahdo Fadman oo ka samaysnaa maadada plutoniumta iyo midka la yiraahdo wiilka yar oo isna ka samaysnaa nooca uraniumta loo yaqaano. labadaasi nooc ayaa ahaa labadii nooc ee loo adeegsaday magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki. kooxdii 509aad ee ciidanka cirka Mareykanka ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaano USAAF ayaa la tababaray oo lagu qalabeeyay nooca gaarka ah ee loo yaqaano Silver Blade oo ah nooc loo yaqaano Paunin P-18 29 waxaana loo diray Tiana jasiiradda Mariana. xulafada ayaa ciidanka Jaban waxa ay ku amreen in ay si shuruud la'aan ah ay isku soo dhiibaan 26 bishii July sanadkii 1945. taa bedelkeeda haddii ay diidaan in la burburiyo ayaa loogu hanjabay. balse Jaban waa ay iska indhatirtay dhammaan baaqyada iyo hanjabaadaha ka imanayay isbahaysiga, taas oo riixday in dagaalka uu sii socdo. isbahaysigii Mareykanka uu hogaaminayay ayaa soo saaray amar ah in hubka atomic bombka lagu garaaco 4 magaalo oo dalka Jaban ka tirsan 25 bishii July ee isla sanadkaasi. 6 bishii Agoosto ciidanka cirka ee Mareykanka ee P-18 Boxcar ayaa atomic bombka loo yaqaano Little Man ama ninka yar waxa ay ku dhufteen magaalada Hiroshima oo ay ku yaalaan deked isla markaasina ah xarunta warshadaha, sidoo kalena waxa ay ahayd xarunta ugu weyn ee militariga Jaban xilligaasi. 3 maalmood kadib ciidanka cirka ee Mareykanka ee la yiraahdo P-18 Boxcar ayaa hubkii labaad ee atomic bombka nooca ninka buuran ama the Fadman waxa ay ku dhufteen magaalada la yiraahdo Nagasaki. dekadii ugu weyneed ee ciidanka militariga Jaban, mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee dalka Jaban, xarunta dayactirka iyo xaruntii ugu weyneed ee wax soo saarka u sameyn jirtay ciidanka badda ee dalka Jaban ayaa ku yaalay magaalada Nagasaki markii hubka nukliyeerka lagu dhufanayay.
2 ilaa 4 bilood kadib markii hubka nukliyeerka lagu garaacay magaalooyinkaasi saameyntii ka dhashay qaraxyadaasi atomic bamka awgeed waxaa dhintay inta u dhaxaysa 90,000 iyo 146,000 oo qof oo ku noolaa magaalada Hiroshima iyo 39,000 iyo 80,000 oo qof inta u dhaxaysa oo ku dhintay iyaguna magaalada Nagasaki ee dalkaasi. dad aad u tiro badan ayaa dhintay bilooyin kadib kuwaas oo u dhintay gubasho xanuunka shucaaca iyo dhaawacyo ka soo gaaray markii weerarkaasi uu dhacay iyo nafaqo xumo. dadkii ku dhintay magaalooyinkaasi dhammaan waxa ay u badnaayeen dad rayd ah inkastoo magaalada Hiroshima ay ahayd magaalo ay ciidanka militariga ay ku badan yihiin. dalka Jaban ayaa isku dhiibay xulafada Mareykanka bishii Agoosto 15keedii 6 maalmood kadib ku dhawaaqistii midowga Soofiyeed ee dagaalka iyo qaraxyadii Nagasaki. dowladda Jaban ayaa saxiixday heshiiska isdhiibidda ah bishii Sebtembar 2 kadib shir ka dhacay magaalada Tokyo Bay kaas oo si wax ku ool ah u soo afjaray dagaalkii labaad ee adduunka. dagaalkii labaad ee adduunka saddexda qubadood ee waaweyn ee isbahaysiga ahaa waxa ay kala ahaayeen Ingiriiska, Mareykanka iyo midowgii Soofiyeed. aqoon-yahanada ayaa si qoto dheer u bartay saameynta ay qaraxyadaasi ku leeyihiin dabeecadaha bulshada iyo siyaasadda ee taariikhda adduunka ee soo socota iyo dhaqanka caanka ah. waxaana weli jirta doodo badan oo la xiriira anshaxa iyo sharci ahaanshaha qaraxyada noocaasi ah. hubka nukliyeerka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka weli lama isticmaalin inkastoo wadamada hubkan nukliyeerka haysta ay aad u kooban yihiin.